ereyga koowaad waa chaos. Chaos fowdo ama qas ama jahwareer waay. marka chaos iyo chaos labadu waa maqli kartaa, waa qas, jahwareer iyo fowdo. waxaad dhihi kartaa haddii qas iyo fowdo meel ka dhacdo, the government worked hard, dowladda si adag u shaqaysay. the government worked hard, si adag waxay uga shaqaysay to restore inay dib u soo celiso, to restore inay dib u soo celiso order nidaamkii, after kadib days maalmo of chaos oo qas, jahwareer, fowdo iyo qalalaasi uu jiro. bismillahi raxmaan raxiim. laba erey iyo 2 daqiiqo waa 10 muhiim ah oo badanaa arday badan ay ka faa'iideysteen ayagoon waqti badan uusan ka dhumin. waxaase iga wargelinaa in bisha Abriil ee sanadkan 2026 aan qaadanayo fasalo cusub kuwaasoo kugu saacidi kara inaad si wanaagsan u horumariso una fahamto luqadda Ingiriiska. laba bilow safarkaaga luqadda Ingiriiska bishan Abriil sanadkan 2026 ha iska dhuminin waqti kale wixii hadda ka dambeeya. marka casharkii ayaan hore u sii gelayaa. ereyga koowaad waa chaos fowdo ama qas ama jahwareer waay. xagga Amerikaanka waxaa laga yaabaa inaad maqasho iyadoo loogu dhawaaqayo chaos. marka chaos iyo chaos labadu waa maqli kartaa, waa qas, jahwareer iyo fowdo. waxaad dhihi kartaa haddii qas iyo fowdo meel ka dhacdo, the government worked hard, dowladda si adag u shaqaysay. the government worked hard, si adag waxay uga shaqaysay to restore inay dib u soo celiso, to restore inay dib u soo celiso order nidaamkii, after kadib days maalmo of chaos oo qas, jahwareer, fowdo iyo qalalaasi uu jiray. jumlad kale aan gelino, waxaad dhihi kartaa the classroom, fasalkii wax lagu baranayay was wuxuu ku jiray in a state of chaos, xaalad fowdo ah iyo isku dhaxyaac uu ku jiray. the classroom, qolkii wax lagu baranayay was in a state of chaos, wuxuu ku jiray xaalad fowdo iyo isku dhaxyaac ah, chaos, until ilaa the teacher macalinku arrived oo ka yimid, arrived oo ka soo gaaray oo yimid. ereyga labaad waxaan ka dhiganaynaa erey asaga ka yimaada kii hore magac u ahaa, kan wuxuu noqonayaa sifadiisa. waxaa la lahaa chaotic, waa sifadii ereyga hore ee chaos. waxaa la lahaa kan chaotic wax isku qasan. saxaafadda waxay badanaa qoraa ayagoo dhahayo eedoos waxay ahayd a chaotic scene, muuqaal isku dhaxyaac ah, muuqaal fowdo ah ama isku dhaxyaac ayuu ahaa, ama jahwareer leh. chaotic scene, muuqaal isku dhaxyaac ama jahwareer leh buu ahaa. with people, iyadoo dadkuna running ay u roorayeen in every direction, jiha kasta, the scene, muuqaalka at the airport, ka jira airportka was wuxuu ahaa chaotic mid qasan buu ahaa, fowdo leh, qas iyo jahwareer leh. after kadib the flight, markii duulimaadku was cancelled la kansalay. bal jumlad kale aan gelinay ereyga the political situation, xaalad siyaasadeed in Sudan ee ka jira dalka Sudan is waxaa weeye chaotic mid qas iyo jahwareer leh oo fowdo leh. unpredictable, aan la saadaalin karin. marar badan ayaa marka xaaladaha waddan waxay noqdaan chaotic mid isku qasan oo fowdo ka jirto, unpredictable aan haddana la saadaalin karin. labada erey maanta ayagana waa 2 erey oo iska dhashay oo midna magac u ahaa midna sifo ahaa. waa 2 erey oo maanta si aad loogu isticmaalo saxaafadda maanta jirta. marka inta laga gaaro casharka xiga, wabilaahi tawfiiq.